Soomaali badan inay isweydiisa ayaa laga yaabaa ereyga waxaa idin soo horumarinayaa danta guud. Danta guud waa marka qof kasta oo shacab ah danta guud u raadiyo. Danta guud waa qaranna waa dawlad. Waa kan caafimaadka aad ku helayso, waa kan waxbarashada aad ku helayso, waa kan nabadgelyada aad ku helayso. Adiga oo shakhsi ah oo 60 sano wixii ka badan 63 sano wixii ka badan nolol ma aha. 63 sano kaliya adduunka noolaanay waqtigaadii iska yar yahay. Adigoo sharaf dalkaada ku noolaado oo nabadgelyo ku noolaado oo meel kasta oo dalkaada ah mari karo waxaad ku heli kartaa danta guud. Kuma heli kartid danta gaarka ah. taa ayaa dhab oo xaqiiqa. Danta gaarka iyaduna waan geli doonaa ee dhibaatooyinku leeyihiin. Marka dantii guud bal ila arka walaalayaalow hadii aan insha Allah ta'ala oo aan idin galayo bal xilligii Soomaaliya xornimada ay qaadatay oo loogu talagalay to radically change the lives of everyone, especially the children, who are not only encouraged to sing revolutionary songs, but were recruited into learning new skills that would help us all build a better Somalia. In Somalia, our history has always been passed down by word of mouth from point to point. In 1972, our government finally dantii guud ee dawladda muhiimka ay tahay waa adiga ayaa ku nool shaqsahan faa'iidana ku leh ee kuma laha adiga oo xaqiiqatan inaad taqolayso danta gaarka ahi dhibaatada 20 sano nala hadhay ee curyaanka nagu dhigtay wali raja aan ka soo muuqanay waa danta khaaska ahi. Danta khaaska ahina waan gali doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo oo waa qaybta saddexaad. Haddaba danta guud waxaan mar kale dhalinta qaranka Soomaaliyeed idin leeyihiin dhammaan Soomaali weyn meel kasta ay joogaanba dhalinta qaranka Soomaaliyeed ku soo biira waa danta guud. Waxaad ka heli kartaa Facebook dhalinta qaranka Soomaaliyeed adiga oo aan mogaanin waa wadaniyiin aqoon-yahaniin isku wacdi galiyay lana dagaalamayo cadawgooda kuwan yahay dabargoynta qabyaaladda. Haddaba ha mogaanin waa dhalinta maanta oo isku duuban tahay danta guud sidii loo heli lahaa. qaybtan saddexaadna waxaan geli doonaa danta gaarka ah. halkan sidan u baabaaday waa Soomaaliya gaar ahaan caasimadda Muqdisho. waa danta gaarka ah dhibaatada ay nagu hayso oo baan daawo waxaad moodaa 40 sano in ka badan inay ahayd meeshan dagaalkii labaad ee adduunka inuu ka dhacay. dhibaatadan baan waxaa noo keenay danta gaarka ahi oo ah qof walba inuu isku dayo inuu u qabto xukuumadda walaalkii in adeerkii taasi oo qabyaalad ah. maxayse adi shakhsi ahaan kugu fadhida oo faa'iido ah waa cadawgaadii koowaad inta aad u oolanayso danta gaarka ahi waxaa ku qabsanayo oo aan shaki lahayn cadawgaada oo farabato dagaalka sii qoto dheeraado. haddii caalamka maanta loo soo gurmaday ciidanka geeyayna aan dan laga gelin waxaa dhici karto in danteena gaarka ah ay nagu naqabadsiiso ilaa iyo 50 sano oo kale aan ku jiri karo. danta gaarka ah haddii shakhsi ahaan adiga aan kaaga soo qaado walaalka in adeerka hadduu xukuumad qabto faa'iidada kugu jirta adiga shakhsi ahaan maxay tahay cadawgaada sii kordhayo caafimaadkaada ay ku xumaanayeen waxbarasho kuma helaysid. dagaalkan ayaa dhacay marka dambana adiga ayaa xabada qaadanaya ama lagu dilay ama wax ku dilayo. wiilkaada ku curyaamayo hooyadaaba ku curyaamiso aabaha ku curyaamayo in adeerkaaba ku curyaamayo. sidaa awgeeto waxay dhabta kugu jirtaa inaad ka tagto danta gaarka ah ee Soomaalida maanta ku baabaaday. danta gaarka ahna haddii wax qabanayso ama qof guul uu ku gaari karo ama koox waxa ku gaari lahaa 20 sano caalamka indhaha idinka daawanayay ee danta gaarka ah wadateen maanta cid la baryay ma jiraan cid walbana waa la maqoonin caalamkiina wuu idii adkeysan waayay 20 sano ayaa indhahan inaga dhowrayay. hadda amniga waxa la wareegayo hadduu Ilaahay yiraahdo golaha ammaanka waxayna tagaysaa carruurta iyo haweenkii dhibaatada loo geystay in iyagu uu ku gacanta laga geliyo cid alle ciday soo dooranayaan oy xukuumad ugu taragalayaan. sidaa awgeeto waxaa maanta dhalinta Soomaaliyeed ay ku kulantay oo iskugu yimaadeen danta guud. danta guudna waxa weeye dhalinta qaranka Soomaaliyeed oo aad ka heli karta Facebook ama page-kooda website-yada dhammaantiin. ha mogaanin dhalinta qaranka Soomaaliyeed waa Soomaalida maanta halka ay iskugu tagtay dhalinyaradii dhammaanteed oo idil. waana mahadsantihiin qaarta sharafta leh ee na daawanayso.